dagaalka waxa uu ka soconayaa meel qiyaastii 2 kilomitir jirta Dacbeer oo la yiraahdo Bacaha dagaalka waxa uu bilowday subaxnimadii hore wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada booliska Itoobiya iyo dad shacab oo dhaqato deegaankaasi degan dagaalka waxa uu geystay khasaare isku dhibashada dhaawac Jalaaliyow ilaa hadda waa uu socdaa isbitaalka Cadaado aan ku suganahay waxa la sheegay laba dhaawac mid kamid ah waa uu dhintay laba dhaawac oo kale waxa la geeyay sida xogta ugu soo gaaraysa Galsoor laakiin dhaawac kale oo badan la soo wada jira dhibashadu waxa la leeyahay way badan tahay marka dagaalka weli waa uu socdaa waxa ka qayb qaadanaya gawaarida dagaalka oo labada dhinac ay adeegsanayaan isticmaalayaan marka weli waa uu socdaa waxaana jira gurmadyo soo kala gaaraya dhinacyada marka khasaaraha dhinaca dhimashada iyo dhaawaca intaad hadda adigu maqashay maxaad nooga sheegi kartaa dhaawaca inta hadda dhaawaca oo xogta rasmiga la hayo dhaawac ilaa 10 buu ka badan yahay dhimashaduna ilaa 4 waaye sida dadka deegaanka ay sheegayaan laakiin anagu waxaan ilaa hadda aragnay dhimashada laba ruux oo mid ahaan dhaawacaan lagu keenay isbitaalka soo geeriyooday iyo mid kale isaguna dhex ka soo dhintay marka laakiin waxa la dhimasho kale jirta oo iyaduna deegaanka dagaalka saa ka dhalatay xog rasmi ah dadka maaragtay laga heli karo sababtoo ah isgaarsiinta deegaanadaasi maaragtay aad u liidata iyo dagaalkii oo socdo si xoog ku socdo marka laakiin waxaan ku xaqiijin karaa in maaragtay dagaalka uu yahay mid si weyn looga dareemay deegaanka oo dhan waa gartay sababta marka dagaalka keentay labada dhinac isku dirirayaan maxaad noogu sheegi kartaa sababta dagaalka ciidamada iyo dadka xoolo dhaqatada ay ku dagaalamayaan maxay tahay waxay ku dagaalamayaan hadda ka hor ciidamada iyo booliska dadka deegaanka Dacbeer waxay ku amreen inay deegaanka iskaga baxaan iyagoo wax soo sheegin dadkii deegaanka ay ka soo barakiciyeen ayaa waxay yimaadeen meel qiyaastii 2 kilomitir jirta Dacbeer oo muuqata halkaas ayay maaragtay bacadgeysteen oo biyo ay ku shoonayeen safar qabto Jalaaliyow dhulka waxa ka jira abaar xoog leh oo maaragtay dadka dunyada saameysay meeshaas biyo lagu geeyay dadkii soo barakacay taas ay mar kale ka yimaadeen iyagoo rabay deegaanka ay ka sii barakiciyaan ama ka sii kaxeeyaan marka dadkii aan dagaalka kala hortageen dagaalku sidaas ayuu ku bilowday oo ciidamada iyo booliska ayaa iyagoo gawaarida dagaalka wata soo aaday dadka deegaanka xabad ayaana bilaabatay kadibna dadkii qayb ka midana waa ay qabteen qaarna waa weli la dagaalamayaan waxaana ku la dagaalamayaan heleen gurmadyo uga yimid deegaano ku dhow marka ilaa hadda ma jirto dhanka kale wax nasuul ka tirsan maamulka galmudug Jalaaliyow oo ka hadlay dagaalka deegaanka Dacbeer ka soo cusboonaaday iminka aan kula hadlayo roob xoog la ayaa taagaya mana jirto ilaa hadda dhaqdhaqaaqa waa istaagtay magaalada Cadaado oo roob dabeel wata ayaa taagaya marka laakiin insha Allah saacadaha soo socdaan rajeynayna in xeeb badan ay ka soo baxdo dhanka maamulka galmudug oo ku aadan inay ka hadlaan dagaaladaasi